berbera tuhmanihii dulmanaa. xaqiiqada magaalada berbera ma aha dhismaha waddada quruxda badan ee lagu xardhay calaamadaha lagu hareereeyey noocyada kala duwan ee dhirta ee aad taayirka la helayso markaaad soo gasho magaalada. ma aha muuqaalka soo jiidashada leh ee meesha dheerkaaga soo hiraya ee dekedda berbera, mana aha dhismayaasha dhaadheer ee hamaha shidaalka berbera leeyihiin. sidoo kale ma aha xaaxiga xeebta quruxda badan ee dabbaasha loo tago ee batalaale, laakiin xaqiiqadu waa mid tan ka duwan. dad badani waxay aaminsan yihiin inay berbera hesho dakhli aanay xaq u lahayn oo ay dulmi ku hayso magaalooyinka kale ee dalka, iyagoo u aanaynaya xeerka midaynta cashuuraha ee xeer nambar 12 oo ay dad badani aaminsan yihiin inuu kala horraysiiyey magaalooyinka dalka. ka warran haddii aan kuu sheego inay dadka reer berbera tirsanayaan dulmi weyn oo lagu hayo, isla markaasna xeer waxtara iyo kabay hesho iska daayay ay halkan ka jirto nolosha ugu adag ee maanta taalla Soomaaliland. mid ka mid ah hantidii dadka reer berbera iska lahaayeen oo 8 sano ka hor gacanta loo geliyey ganacsato iyo shakhsiyaad la shaqaysta ayaa caqabad ku noqday noloshii dadka reer berbera. hooyay qudaarta sanibiya maaha inta ka soo baxday iyadoo ma ku bixiya marmaray carruurtaydu bilaa raashin tahay ayaan wallaahi alcadiin reeraha uga soo karinayo ayaan warshada ku bixiya lacagteeda. wajigala waa ka barafka biyaha waa biyahan dariiq waxa la xal jira ma jirto waxaan iibinaa bil quraal idul saar $50. jayda waanu baqanaybo maba gelinayno inaad qof bilaadmiyo lacag bahaysan ku raaftaa bay noqonaysaa. war qoodhiin iyo xeradin baan ku nidhi ma laba telefoon haadhe ayaa $820 soo qora. 141 baa lay keenay. laydhkan waxaa iska jiray imika 5 bilood ka hor baa la iga gooyey. walaal carruurta agoontayd walaashay abdaal joogto markii kooraankii la naga jaray ayaan u gudbiyeen geeyey. maalmo dhaxdaasta habeen dhan noqonaa labadii habeen noo soo dhacay kalluun badan saas kale ku daadinay oo ku xumaaday. marka dambe arrinkaasi qarax buu keeni doonaa oo dadka ganacsatada ee warshada leerka haysta iyo ummadda isku soo baxsan doono gacanta loola tagi doonaa. magaaladii berbere dadkii 8% waxay ugu guureen marka layn waan dayaabana hal iyo xabad marwaxdo kaliya la carruurtina shalay baan direena maanta ka daba baxaya. war ilaahay ka baqa oo u badbaaleedina adduun baaleed war ummadda dan yartaa u tura lacagtii laydhka ee lagugu lahaana waa taas iska bixi. laydhku matalan saaka wuxuu iga baktay 5tii subaxnimo hadda now ayaa baryo la igu soo xidhay. qofkii muwaadinka ahaa ee dhibaatadana taabanaysa markuu shiraato dhibaatadii ka hadal waxaa jirtay in qofkii saani loo dacweynayo marmarka qaar la xidhayo. dad baaba la xidho iyagoo sidina noola hadlaya qaar suxufiyiin waa la xidho la soo xidhay. ma aaminsanin ninkii duqa magaalada ahaa ee ummaddan iyo islaantan dan yarta ah qorshaday iibinaysa ka mas'uulka ah inuu fawdada iyo dhaca ummadda reer berbera ka mid yahay. ma aaminsanin taas laxantii kulaha nolol qasab oo nadu weeyaan nolosha imika berbera uu leer ku haya. qarniyo badan oo ay magaaladu jirtay, leydhka magaalada waxaa gacanta ku hayay dawladihii kala dambeeyey ee soo maray dalka, wuxuuna ahaa hanti dadweyne sababo la xidhiidha nolosha magaalada oo ku xidhan leydhka darteed si looga ilaaliyo gacmo faa'iide ka doona oo dawladuhuna ay u kabaan dadkuna ugu noolaadaan nolol ay awoodi karaan. muddo ay warshadda leydhku ahayd mid ummadeed kadib sannadkii 2015 waxaa gacanta loo geliyey ganacsato macaash doona. maalmo kadib maxaa laga dhaxlay wareejintii warshadda leydhka ee magaalada berbera. leydhku waxa uu curyaamiyey noloshii dadka reer berbera. qiimuhu waa mid aad qaali ugu ah bulshada, haddana si joogtaa uma helaan leydhka oo waa mid go'a saacado maalin kasta. waxa uu naafeeyey ganacsigii iyo korriimihii magaalada. berbera waxaa ku sugan qoysas uu kala geeyey leydhka qaaliga ah
hooyooyin iyo ubadkoodii oo u kala hayaamay laba jiro magaaladii oo u muuqatay mid laga guuray iyo sidoo kale dadka badankoodii oon ka hadli karin dhibaatada laydh ee haysataa iyagoo ka abranaya caburin jirta kana baqa qaba in shaqooyinka laga eriyo ama lagu xidho saldhigyada magaaladan ugu kulul jamhuuriyadda sida ku dhacday dad badan dhammaan qodobadaas waa sheekada uu xambaarsan yahay barnaamijkeennu iyo xog aannu ka soo xantoobinnay toddobaad aannu dhex taagnayn magaaladan mushkiladu taal ku soo dhowaada xaqiiqooyin xal u baahan oo ku saabsan magaalo xeebeedda berbera waxa ay ahayd ilaa haddana ay tahay marin muhiim u ah dunida oo dhan waa il nuujisa somalilan iyo bariga afrika balse hafar iyo hiilla'aan isku raacay magaaladan ayaa ka dhigay mid dusha ka qurux badan gudaheedase ay ishu diidayso taariikh ahaan magaaladani waxay gondaha dhigaysaa berisamaad iyo beryo aan warkooda la soo koobi karin teeda casriga ahna waxa ugu mudan maalgelinta ay ku sameeyeen khawaajuhu dakhliga ay soo saarto sannad walba iyo bilicda ka muuqata ee saruhu ugu dheer yihiin nolosha magaaladan laydhku waxa uu ka mid yahay curiyayaasha asaasiga saasay tahay adeegga ugu liita ee bulshada magaaladani helaan waa laydhka qiimaha laydhku waa caqabadda ay ka ladi waayeen bulshada magaalada berbera markaad la sheekaysato waxay kaaga warramayaan sida ay wax yihiin waxaan leenahay laydhka hoos ha loo eego danyartii magaalada berbera ku dhaqan aad bay u dayacan tahay waxay ugu dayacan tahay laydh fiican ma helaan maxay haydeen magaalo xeebeed kulul weeyaan maxay haydeen waxa lagu nooliyay berbera lagu nooliyo waa laydhka laydh haddeed weydid kuma noolaan karaysid 10 bisha markay gaadho gooyntii baa bilaamaysa gooynta markay bilaabanto in layga gooyo daruuri uma aha oo $5 oo ku bixisa layga bixinay aan marka layga jaro aan bixinaya marka waxaan alay yaalaan computerka waa layga reeba $100 baa soo bixi $40 bishan baa lagu soo dalacaya berberi lama mid aha gobollada kale waa magaalo kulul cimiladeedu ay sarrayso aan laydhkeeda mar qura laga maarmin laba arrimood buu nagu hayaa laydhka berbera qaali iyo tayaxumo uu markuu doono go'ayo iska tegayo anugu imika haddaan kuu soo qaado intii aan imika soolarradani waxaan imanin laydhku $20 iyo $20 iyo dee imikana $40 laydhkaana habeen iyo maalin waa la kordhinayaa bil walba waxa loonayaa dalac waraaq baa naloo keenayaa dheeraad ku jiro oo intii hore laga soo kordhinayo marka aanu waa maxay waxaana waxa la yiraahdaa laydhkaa soo qoray ka dacwada hadaa doonaysa dheeraad ku kala socda iyaga ku soo daraya waxay ugu soo daraan shirkadda ku soo dartay bay ku oranayaan shirkadda ayaa ku soo dartay bay ku oranayaan awalna inta hilibkeega dhigano oon talaagadaas ka gashano bari noo iib galay laakiin imaka waxay noqotay inaad qof aan lacag bahaysan inaad kuba raaftid sababta dabkii laydhka lacag buu nagu qoray qof waliba $100 buu diidayaa meel uu ka socdo maan la garanay dadka dhan ee saribada jooga kala badhbaaday screenka ka ganacsada wallahi xidho laalaabay baan ku guryahoodii fadhiistay burger waxna lagu soo qori jiray $8 laakiin markii waxay maraysaa $40 bay maraysaa kulaalkii talaagadna ima baxdo waxay baxaayeen macal TV melihi hal guluub bay baxdaa berbera leerku wuxuu ugu jiraa halka dadka magaalooyinka kale raashinku ugu jiro waa daruuri ma aha leer baa waqtiyay iyo waxaan berbera leerku wuxuu ugu jiraa horta lambar 1 oo waa daruuri sida dadku raashinka ugu baahan yihiin berbera dadka ku nool leer ugu baahan yihiin waayo hadii kale ma seexan karaan berbera marka leerkeedu wuxuu u baahan yahay xal degdega oo ay dawladdu wax uga qabato berbera leerkeedu uma baahna cid ka faa'iida ee waxay u baahan tahay cid ka naxaysa imika waxaad moodaa nimanka ganacsatada ee warshadan leerkii isugu tagay dadkii maalqabeennada ahaa inay haddana berbera faa'iido ka doonayaan berbera leerkeedu wuxuu doonayaa cid kabta cid ummadda danyartaa u naxda ee kuleelka ku nool berbera leerkeedu wuxuu u baahan yahay cid u gurmata oo runtii dadku aayarun bay ka hadlayaane waa serious arrinka berberi muna xuseen waa hooyo korisa carruur agoona yada iyo carruurteedu waxay u kala fogaadeen korontada oo qaali ku noqotay darteed laydhkii u xidhnaana waxaa laga jaray bil ka hor kadib markii ay iska bixin kari weyday lacagtii lagu soo qorayey
laydhka markii hore waxaa la nagaga dhigi jiray $8 buu aakhir nagu soo qori jiray iminka $10 buu markuu noogu badan yahay uu soo qorayay iminka 70 50 waxaa ma dhaafaba dee mana awoodi karo wallaahi se runteeda agoon baan haystaa ma garanaysaa dee 70kii ma agoontii baan ku siistaa mise iminka 16 baa la naga jaray cimiladan aan arkayno nimanka anagii magaalada joogi kari weyno gaadhi AC ku dhex jirna caruurtii agoontahay sidee markaa xalkeedii walaal caruurtii agoontayd walaashay abdaal joogta markii kooraankii la naga jaray ayaan u gudbiyeen geeyey halkan aad ugu haa imkaan halkan ma iska joogaa xilligan oo kale markaad soo booqatid magaalada Berbera waxaa qasabay inaad dhididka saydid biyaha qabow ay ka maqnaan gacantaada haddii aad sardhada macdana mukayf iyo marawaxad la'aantood suurtagal ma aha hurdadu sidanna waa habka ugu fudud ee aan idinku sharrixi karo kulaylka ka jira halkan Berbera koronto la'aan waa nolol la'aan laakiin tan waxaa beenaysay hooyadan iyo carruurteeda oo in ka badan 6 bilood ku nool nolol adag kadib markii ay iska bixin kari waayeen lacagta laydhka ee lagu soo dallaco lagana jaray waxayna wehelu yihiin hanfi aan hadal lagu suurayn karin laydhkan waxaa iska jiray marka 5 bilood ka hor baa la iga gooyay waxaana la iga gooyay marka hore $9 buu soo qori jiray laydhku muxuu ahaay $9 laba laambadood oo mid gudaha iyo mid banaanka ah ayaa aniga isnaan jirtay qasaalad ma isticmaalo bahashi ma isticmaalo waxa ma isticmaali jirin waxa ma isticmaali jirin kadibna markii bishii ugu horeysay 5 la igu soo qoray bishii labaadna 5 la igu soo qoray oo inta 2 bilood oo $50 aan wada bixin kari way hooyo iska dayano magaalada Berbera ku nool laanahay sidii baan markaa aan iskaba gooyaba kadibna saasaan imankaan ku noolahay bilaa laydh booqashadayadii xaafadaha magaalada Berbera iyo soo araggii dhibaatada halkan taala waxay saamayn ku lahayd noloshayada mar kale ayaannu dib ugu noqonnay qoysaskii danyarka ahaa aan la soo kulannay si aanu ugu ducayno uguna soo celinno laydhka weliba annaga oon ogayn cidda ka bixin doonta bilaha dambe lacagta lagu soo dallici doono kadib markaan ka bixinno deymihii hore loogu lahaa maanta mar kale waxaan soo booqannay maamo Ikraan oo gurigan ku nool haysataan carruurta maamo imsa waa 10 oo haysata 10 carruura isla markaasina 6 bilood ee ugu dambeeyay uu laydhku ka goonaa lacag 2 bilood oo lagu lahaa darteed looga jaray isla markaasina magaaladan kulul ee xaaladeedu adag tahay aanay laydh haysanin ka waran noloshiina intii uu laydhku idinka maqnaa wallaahi waan iskala qabsanay nolosha intuu laydhku naga maqnaa markii aad laydhka haysateen iyo iminka maxay ku kala duwan tihiin markaan laydhka haystay ciyaalka marawaxadaan u shideeyo laydhkaan u shideeyay muxuu ahaay dee iminkana waa kulaylo barxaddaasaan u soo saaraa ciyaalka haddii iminka 2 bilood ee lagugu leeyahaan kaa bixinno waad laydhka soo ceshato ma awoodi karaysaa bilaha dambe inaad iska bixiso haa waa laga yaabaa inaan bixiyo haa waan bixinayaa insha allah wataas lacagtii 2 bilood ee lagugu lahaa waxaan rajaynaynaa insha allah inuu ilaahayna kuu gargaaro laydh jabanna aad heli doonto insha allah bismillaahi kariim aad u mahadsan tahay Muna insha allah waxaan rajaynaynaa Muna inay dawladdaadina ku daawato dhibaatada jirtana wax laga qabto lacagtii laydhka ee lagugu lahaana waa taas iska bixi insha allah ilaa khayr ka dhigo laydhka oo qaaliya keliya maaha dhibta halkan taalla xataa qofka iska bixin kara lacagtu ma heli karo laydh ku filan saacad kasta waxaad filanaysaa inuu go'o oo ma laha isku hadlayn markaad Berbera joogto tijaarta iyo ganacsatada waaweyn waxay si iskooda u soo iibsadeen mashiinno u gaara laakiin waxa uu si weyn u naafeeyey ganacsatada yaryar iyo dadka danyarta ah ee reer Berbera laydhku dadka u naafeeyey ayaan ka mid nahay kalluumaysatadoo lafdhabar u ah dalka iyo Berberaba waxay si joogtaa ugala kulmaan khasaare baaxad leh marka uu tago waxa uu sababaa in kalluun badani xumaado halka uu khatar geliyo qaboojiyayaashooda oo mararka qaar u xumaadaa tegista iyo dabka baaxadda leh ee ku soo dhaca marka uu soo noqdo kalluumaysato waxaanu iibinaa xabadda kalluunka markay badda ka soo baxda haddaan ay baraf helin iyo meel dee ay lagu nasiyo qabow dee ma ku anfacayso wax yar 5 minute ma oli karto dawladda marka waxaa jirta dee mararka qaar isagoo baalkii kulayl oo la soo shaa'ideeyo markaa la soo xareeyey in uu laydhkiba tago oo uu saa ku tago markaa kalluunkii wax badani saamayn badani soo gaadho qaar badani oo xumaado kululaado dee
lebaha kulaylo inta aad baraf u doonayso haddana aad u sii socoto aad baraf kale u raadinayso marka uu tago kale meesha laga maqan yahay intuu tago haddana soo dhaco talaagada imka halka dambe taalo kale marka gaas u jiiday moogtay marka uu tago laba jeer marna ku soo dhaco marna uu ka tago wax xumaanayaan imka xagga dambe way yaalaan qaar xumaaday iyo saas oo kale xumaaday intii aan berbera ku sugnaa waxaan ka mid ahaa dadka uu saameeyay laydhku ee dhibanaha duurkii ayaan hodheelka soo gallay markaan soo qadaynay kadib si aan 2 saacadood u seexanno ka hor intaanan shaqaynin ama geliga dambe aanan duubitaanka barnaamijka mar kale bilaabin intii aan hoteelka ku jirnay muddo 3 jeer aniyo tiimkayga ayuu leydhku nagu tegey markuu leydhku tago waxa adkaanaysa wax ka yar 5 daqiiqo uunbaad ku jiri kartaa hodheelka gudihiisa bannaanka loo soo baxaya dhammaan dadka hoteelka degan oo dhan nin walba qolka uu ka soo boodayaa hanfiga iyo kulaylka dhacaya ayuu naf soo bidaya waayo qolka hawadii baa isku xidhaysaa waxaad ka baqaysaaba inuu naqasku kugu dhego markii aan ku ladi waayey hoteelkii aan deganaa waxaan u soo baxay bannaanka si aan wax ugu ogaado xaaladda magaalada meel aan iga fogayn xaafadda Jaamalaaye waxaa ku sugnaa wiilkan dhallinyarada oo lagu magacaabo Cabdifataax isna waxa uu kulayl dartii ku gami waayey daaradda gurigooda kadib markii ay ka dintay marawaxaddii laydhka oo maqan dartii tani waa nolosha caadiga ee reer berbera intii aan joogay 2 habeen oo ka mid ah magaaladu waxay ahayd mugdi oo laydhku waa uu ka go'ay gebi ahaanba magaalada bannaanku waxa uu ahaa gudcur aanad waxba ka arkayn sidoo kale gudaha hoteelka iyo guri midna lama geli karayn waxa igu ahayd la yaab laakiin reer berbera waa wax caadi u ah oo waa ay la qabsadeen caawa waa habeenkii saddexaad ee aan ku sugannahay magaalada berbera intii aan magaalada berbera joognay waxaa xusid mudan waxay noqonaysaa markii afraad ama shanaad ee uu leydhku tago laakiin caawa cimilada oo aad u kulul darteed magaalada sidii aad daawanayseenba gebi ahaanba waa madow madowga waxa dheer keliya ma ahee in kulayl aad u badani jiro marka dadka intii gawaadhi haysatay gawaadhiday gelaysaa ee siigooda shidanaysaa waxay sugaysaa marka intuu leydhku soo dhacayo si qofkii marawaxad isticmaalayana marawaxadiisa u isticmaalo qofkii hotel ku jiray sida iyadoo kale ee qaboojiye isticmaalayana uu qaboojiyihiisa u soo noqdo waa mid ka mid ah casharrada aan ka barannay magaalada berbera meelaha sida weyn u saameeyey waxaa ka mid ah goobaha waxbarashada marka laydhku tago subaxii ama galabtii ardayda waxaa laga soo saaraa fasallada ilaa inta uu soo noqonayo waxay joogaan bannaanka maadaama oo aan marawaxaad la'aanteed lagu jiri karin kalaasyada mushkilada ugu weyn waxaa ka mid ah iyadoo xiistii lagu jiro fasalka la fadhiyo inuu iska baktiga leydhka deetna muddo u maqnaanayo carruurtii deetna ay saamaxayso inaad dibadda u soo saarto oo ciyaalkii dibadda la isku wada keeno ka mushkiladda ugu weyn ee uu nagu waya waxaa weeye in carruurtii oo yahiin oo caydiya oo aan kulayl qaadi karayn markii hore magaalada sida caadiga naajirka ilaahay u abuuray tahay magaalo kulul iyadoo marka hore kulayd caqabada labaad ee jirtay waxay tahay in leydhku uu saacaday oo iska maqnaanayo si yaroo mararka qaar dhowr jeer uu go'ayo mushkilada wallaahi aan yaray buu nagu hayo waa ka barafkan shalay casarkee xidhay sida biyaha waa cid ka iibsanaysa maad u malaynaysa biyahaas biyo meel walba way yaalaan dadku waxay u baahan yihiin baraf dhagaxayd wax ku qaboojistaan talaagadaha sidaasay u noqdeen iminka leedlaan darteed talaagada hala dabka ma joogo maanta masaajidada goobaha cibaadada iyo jaamacadaha habeenkii laftarkoodu waa ay qabaan dhibtan mararka qaar waxay wax ku akhristaan ama ku tukadaan toosh inta uu soo noqonayo laydhku si qiimaha laydhka loo jebiyo loona hagaajiyo tayadiisa dowladda imaaraadka oo gacanta ku haysa dekedda berbera waxay ugu deeqeen dadka reer berbera solar system malaayiin dollar ku baxay oo 7 megawaada halka ay berbera u baahan tahay guud ahaan 3 megawaad oo keliya حيث أصبح الآن بالإمكان توفير الكهرباء بصورة مستدامة ومتماشية مع المعايير البيئية. مركله بنجيجا أدونكا iyo isla DB World waxay ku dareen 3 megawatt hadda berbera waxay haysataa 10 megawatt oo leedhka cadceedda ku shaqeeya oo firiya. tani waxba uma ay soo kordhin berbera oo weli waa ay qatan tahay leedhkii la siiyeyna waxa gacanta loo geliyay isla ganacsatadii warshadii hore qaadatay mar labaad ay hantidii magaalada hanatay ganacsatada kuwii hore ku tagay
ma jabay qiimihii laydhku maxayse beddeshay soolartii imaaraadku ugu deeqay dadka reer berbera su'aashan dadka reer berbera ayaan hordhigay inay horta intan soolarku timi waa intuu laydhkuba nagu qaaligaroobay soolarta iyo kab kaleba way yimaadaan soolartii imaaraadku bixiyey ee magaalada kulle berbera ay ugu deeqeen imaaraadku maalintii TV-ga aanu ka daawanay ee la wareejiyay baa noogu dambeysay waxaana la yiraahdaa maalintii bay idin baxdaa soolartu haddana waxay naga bedeshay oo ama sixir ay naga jabisay ama maxay haytolo wax kale oo ay noo kordhisay haba yaraatee ma jirto meel ay soolartaasi la geeyay iyo meel ay jirto toona garan mayno halka markii lagu xareeyay aanu daaweynay laha laydhkii baa lagu daray aanu nudi ma laydhkii kululaaye sideed ogtayna loogu hayayba haddana soolartiina loo raaciyay ayaa noogu wardambeysay waxba nagamay bedelin ka baa jira berberida waad ogtayna waa ilaa dhaqaalaha Soomaaliland doonyaha soo gala berbera doon kasta shidaal baa looga qaadaa laydhka oo lagu kabaa wax ay naga bedeshaana ma jirto hadda doon kasta oo soo gasha shidaal baa looga qaadaa haddana soolartuna u baxdo 10 saacadood u baxdo anigu 0.10 baan maanta ka filayay kamaan filan 0.40 soolarka degmada loogu deeqay 7 megawatt ee imaaraadka carabtu ugu deeqay wax allaaliyo wax dadkii ay ku soo kordhisay ma jirtaan qiimihii kordhay un mooyaane qiimo ka jabayna ma jiro sidoo kalena dekedana waa laga kaba warshada leedhka oo maraakiibta iyo doonyaha ku soo xidhaa shidaal ayay siiyaan taa qudheeda oo degmo ahaan ay warshadu ku heshana wax alaaliyo dadka kaga jabaa ma jiraan markaas soolartii degmada loogu deeqay dadka ganacsatada ayba macaash ka raadiya sidii soolarta la sheegay waxa lagu caawiyay magaalada berbera bulshada lagu caawiyay laakiin anagu ka bulshahaan waxaan u aragnaa in ganacsatada lagu caawiyayba maadaama qiimihii leedhka ay sare u sii qaaday oo aanay wax ku soo kordhin inay hoos u dhaco waxaan aaminsanahay in ganacsatada la siiyo lagu caawiyay aan bulshadii reer berbera lagu caawin qiimihii waxba kama bedelin tayadii leedhka ee socotina waxa kama bedelin tayadeedu waa zero aad butiyadiisu u liidata waxba waalmay soo kordhin soolartii afka laga yiri dawladda imaaraadku waxay ugu deeqday dadweynaha reer berbera laakiin dawladdii ama xukuumaddii gacanta ku haysay talada dalku nimankii ganacsatada ahaa warshada leedhka haystay tijaarta ahaa ee caqabada intaan lagu hayn baa lagu biiriyay wixii dadka danyarta loogu talagalay iyagiina way leewarkun bay sii qabteenba waxay soo kordhiseen ay noo kordhisay ma jirto waxaan aaminsanahay in iyagun lagu caawiyaan dadweynaha masaakiinta reer berbera lagu caawiyo bartan aan joogo ee iga dambaysa waa halkay taalo soolartii dawladda imaaraadku ay ugu deeqday dadweynaha reer berbera 7 megawatt ayay ahayd markii u horeysay ee dawladda imaaraadku bixisay sidoo kale bangiga adduunka iyo isla DB World ayaa mar kale 3 ku daray hadda 10 megawatt oo laydh solara oo dadweynaha reer berbera ay ugu tala gashay imaaraadku ayaa halkan yaala imaatinkii soolartan oo la filayay inuu laydhka berbera u jabiyo iska dhaafe iminka waa uu ka sii qaaliyoobay intii hore oo markii hore uu yimi soolarku waxa uu ahaa 0.3 haddana waxa uu kor u dhaafayaa 0.49 saamaynta laydhku waxay gaadhay in sanadkan si weyn looga guuro magaalada xaalkuna waa mid u eg baraka nolosha deedna berbera qaali bay wada noqotay deedna qofkii wuxuu door bidayaa meel qabow oo uunu laydhna u baahnayn biyo qaboojisana u baahnayn $100 wuxuu loo xiriir isaga cuno sababtaasaa sababtay beenna maad sheegeen dadweynaha berbera iminka ku nool haddii la qiyaaso 10 kama badno marka waxa la lixii dad danyar ah waxa iska bixin kari waan leedhkii berberena waxa lagu joogaa marwaxada yar leedhkii tayo male oo iska go'aya lacagtiisu waa qaali magaaladii berbere dadkii 8% waxay ugu guureen iminka leedh fidmadu waa leedhka qofkii haddii aanu leedhkii iska bixin karin inuu daarada kulul ku jiro hooyo soo kama guurayo kama cararayo talaga hadduu gashada ka daran hadduu imka marwaxadii dhowr mitir u shaqaynayaan amba ka AC-ga le $100 $150 muxuu ku noolay marka qofkii saad laajgeeda looga guuray magaalada waan deeyaabana hal iyo xabad marwaxado kaliya la caruurtina shalay baan diray ana maanta ka daba baxaya xageed u dirtay caruurta Hargeysa u diray waayo kor hadee ay marwaxad inta ay leeyihiin way soo qoraysaa ay leeyihiin marka maxamed nolol ku jirno kulaalkan saddex xagaaga iskaga baxna weeyaan berbera oo ay doorashadii ugu dambeysay ka codeeyeen dad lagu qiyaasay 54,000 oo qof sida caadadii waqtiga xagaagii waa laga xagaabaxaa laakiin xaaladda adag ee laydhka magaalada ayaad moodaa sanadkan inay xagaabixii u bedeshay wax u eg baraka isla markaasna wax ka yar 10,000 oo qof ayaa la qiyaasayaa inay waqtigan magaalada ku sugan yihiin dhibaatada laydh waxaa dhinac socota mushkilad kale oo aan lala qabin magaalada berbera
dadku waa kuwa aad u habranaya waxay kaaga warramayaan caburin ay sheegeen in lagu hayo haddii ay ka cawdaan laydhka haddana waa ay yar tahay inta u hadli karta si xora ma jiro cadaadis kaga imanaya dawladda dhexe iyo xukuumadda madaxweyne biixi balse waa adadkaan ku eg maamulka degmada oo u muuqda mid difaacaya ganacsatada warshadda laydhka berbera inta badanna si daafuran warbaahinta horteeda uga difaaca dadka magaalada oo u badan kuwa ka shaqeeya dawladda hoose dekedda berberaha amaha shidaalka iyo shirkadaha wada shaqaynta la leh qofkii cawda waxaa cadaadis laga saaraa dhinaca shaqada mararka qaarkood waxay la kulmaan xadhig sidaa darteed waxay door bidayaan inay afkooda haystaan dawlad oo ka mida dhallinyarada sida weyn looga yaqaano magaalada ayaa iska duubay muuqaal si weyn ugu baahay baraha bulshada oo uu ku muujinayo dhibaatada laydhka ka haysata dhinaca kale si aamusnaan ah ayuu ugu soo bandhigayaa inaanay dadku u hadli karin si xora cadaadiska jira awgeed laakiin dawlad oo aan la kulmay wuxuu si daafuran iiga warramay halka ay sartu ka xumaatay muuqaalkaa aan duubay waxaan ka duubay marxalad jirta oo ahayd laydhxumada magaalada berbera haysataa muuqaalkaas fariintu gudbinaya waxay ahayd googo'a laydhka oo go'aya wakhtiga ay ugu kulushahay ee qofku aanu guriga gudihiisa ku jiri karin 1 minute dhibaatada magaalada haysata waxaa looga hadli waayey dadkii habrashaa ku jirta habrashada ku jirtaana dee maaha mid ay ku dhasheen waa mid la geliyuun baa jeclay madaxda gobolka iyo madax degmaduba ha geliyaane qofkii muwaadinka ahaa ee dhibaatadana taabanaysay markuu shiraahdo dhibaatadii ka hadal waxaa jirtay in qofkii saani loo dacweynayo marmarka qaar la xidhayo wiigu ku jirayo oo sharci darro lagu xidhayo waaran aan loo soo jaranayn mararka qaar waxaa dhacaysa qofku halkuu ka shaqaynaya institution ka shaqaynayay in toosba madaxdii ka sarraysay looga dacweeyo lagu idhaahdo hebelkan kuu shaqeeya ee arrimahan ka hadlaya arrimahan ka baxdheh bulshada kale ee berbera ayaan iyagana weydiiyey sababta dhibaatada intaa leeg aanay haldoorka magaalada uga hadlin walaal waxaa arrintaas sababay maamuladunbaa sababaya magaalada ka jira ama mid degmo ha ahaado ama mid gobol ha ahaado caburis iyo cadaadin weyn ayaa dadka berbera lagu hayaa oo qofka laga soo weerarayo xarakaadkii iyo halkii shaqee uu tegayay haddii aanu xataa dawlad u shaqayn laanta brayfatka u shaqeeya inta la tago in la idhaa inankaa waxaad ku tidhahdaan maanta hadashii biriha hadlo cidda waxaan samaynaysaana hadalka lagaa bee sheego waa maamulka gobolka iyo degmada dhib aan ahayni ma haysto cid kale ka baqaan ma jirto annagu xukuumadda xanama soo gaadho dee dawladda xanama soo gaadho xukuumadduna nama soo gaadhay gobol baanu ku noolay ka mid Somaliland dee nin walba meel bay xanjo ugu dhegsantay mid walba wuxuu isleeyahay bariiska ay iska ciideen tusaalahaan nin dhalinyaro imanka hadduu hadlo waxa laga yaabin adeerkii ama walaalkii oo meel garanaysaa wax loo tago oo laga soo dacweeyo waxa dhici karta in loo tago goobihii uu ka shaqaynayay qofka oo mas'uulkii sare la yiraahdo laga soo dacweeyo la yiraahdo naga soo qabtay sababtaasaa keenaysa in qofkina sidaa meesha intii uu ka qaadanayay duruuftu una haysay inaanu badiisaba gelin uu ka baxaba waa tajribo aan la noolaa intaan magaalada joogay ilaa imakana umadu la nool yihiin adigoo wariyahay waxaad soo aragtay qof kasta markuu hadalka bilaabayo wuxuu ku bilaabayaa anigoo cidna dhaleecaynayn anigoo aan cidna durahayn anigoo aan madaxda u jeedin cabsidu hadalkooda ayay ka muuqatay dadkaad ummadda la kulmaysay ka duubaysay haddaanad ka jarinna oo aanay programkaaga aanad adigu ka jarinna ummaddu halkaasay ka arki kartaa in dadkii waaweynaa mas-uuliyiintii mujaahidiintii jabhaddii raggii ahaa ee loogu talagalay inay laabta maanta garaacaan inay yihiin kuwa hadalka ku bilaabaya cidna uma jeedo cabsidaasi maaha wax dabiiciya oo alla sameeyey maaha waa cabsi lagu abuuray saldhiggaa looga yeedhaya waa xagaa waa magaalo xeebeed waa danyar qofka waa la xidhaya 3 cisho iyo 4 cisho marka lagu silciyo ee lagula meeraysto ee danahaaga kaa lumaan waxaad qaadaysaa mid naajiraala haddii aan dib u celinno xusuusta 8 sano ka hor markii la wareejiyey warshadda laydhka ee berbera bulshada magaalada ku dhaqnayd waxay sida fiinta uga qayliyeen in dad gaara lagu wareejiyo hantidii warshadda laydhka heshiiska oo midmadow ku jiray waxaa la dhaafsaday warshadda iyo cidda wareejisay oo aanay kalsooni ku qabin ayaa keenay in maalmo isku xiga mudaharaado gelgelay magaaladu ka dhacaan berbera
waxaanu ka soo horjeednaa maanta anigoo matalaya shucuurda ummadda iyo deegaanka magaalada berbera waxaanu ka diidanahay warshada laydhka ayaa lagu wareejiyey cid shirkad gaar oo muwaadiniin gaar wadato 8 sannadood ka hor waxaa halkan ka dhacay mudaharaad baaxad leh oo lagaga soo horjeeday wareejintii warshada laydhka ee magaalada oo ay muddo dheer dawladihii kala dambeeyay soo maray Soomaaliland iyo maamulka magaalada Berbera ay maamulayeen oo ganacsato gacanta loo geliyay in mudaharaadkaasi oo ahaa mudaharaad rabshado wata waxaad moodaa cabashadii maalintaas reer Berbera qabeen inay maanta taagan tahay dhibaatadii ay waqtigaasi ka sii digayeenna waxaad muuqataa inay maanta ay soo ifbaxday haddii aan eegno qaabkii loo wareejiyey warshada laydhka ee Berbera waxaa kaaga muuqanaysa mid madow badan ma ahayn mid daahfuran inta badan dadka waa laga qariyey wixii lagu heshiiyey wasaaraddii ku shaqada lahayd laftirkeedu waxba kagama jirto heshiiska sidoo kale hantida ummadda oo ay hore wareejin jireen madaxweynayaashu waxay ahayd warshadani ta keliya ee heer wasiir lagu wareejiyey waxaa loo wareejiyey hanaan degdega xilli madaxweyne Siilaanyo qorshaynayay inuu ku wareejiyo dawladda hoose ee Berbera oo uu guddi u saaray balse waxaa si kedisa loogu warhelay in la siiyey ganacsato aan cayinayn iyo xafladdii xil wareejinta warshaddu waxay ahayd asad ay leeyihiin dadka reer Berbera haddii ay tahay mashiinada kaabadaha laydhka ee ruushku sameeyey oo loo farsameeyey qaab aanay cuni karin ciidda xeebta iyo kulaylka cadceeddu waxay ahayd asad dawlado inaga caawiyeen ma muuqato wax waxqabada oo ay ganacsatadu ku dareen intii hore dhismihii sandaqadda ahaa weeye weli warshaddu kaabaduhu waa isla kuwii ruushka duugga ay duugoobeen xadhkaha ayaa googo'a laydhka qaybka ah xilliga xagaagii keliya ganacsatadu waxay aruuriyaan biilasha laakiin waxba laguma kordhin sidii ay ahayd 8 sanno ka hor heshiiskii la wada galay oo aan nuqul ka mida helay wax badani kama fulin tusaale ahaan qodobka labaad ee qaybta mas'uuliyadaha waxay ganacsatada shirkadda lagu wareejiyey oo tayo lagu magacaabaa ballan qaadeen in sannadada 2016 2017 iyo 18 ay ku hayn doonaan 0.5 kilowatt halka sannadka 2019 iyo wixii ka dambeeyana qiimuhu noqon doono mid aad uga hooseeya heshiiskani ma fulin qiimuhu waxba kama hooseeyo kii 2019 ee 0.5 ka ahaa haddana waa 0.49 waxaa laga jaray 0.1 oo ka dhigan dhuudhuumasho dhabarku muuqdo sidoo kale heshiiska waxaa kala saxeexday wasaaraddii howlaha guud iyadoon layn minister u ahayn tamarta waxaana qalinka ku duugay guddoomiyihii goostay cabdirasaaq khaliif oo markaa ahaa wasiirka howlaha guud Berbera oo si weyn looga taageeray madaxweyne Biixi wakhtigii doorashadiisa madaxtinimo isla markaasna xisbiga kulmiye ku guulaystay dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey markaad la sheekaysato dadka reer Berbera waxaa kuu muuqanaysa in weli ay yihiin kuwa si weyn u taabacsan madaxweynihii ay shalay doorteen waa kuwa kuu muujinaya iyo didiilo ay ka qabaan in madaxweyne Biixi soo faragelin doono laydhka una heeliyo maanta dadka reer Berbera dawladdeeda sharafta leh waxaan ka codsanayaa madaxweynaha ayaga Muuse Biixi waxaan ka codsanayaa cid kastoona danaysa waxaan ka codsanayaa laydhka kootada in laga soo gaaro laydhkaas man ku cabanina hayadeeda dawladdeeda sharafta leh naga soo caawiyaan oo naga gacan qabtaan in laydhkan loo soo gurmudo laydhkan ay dawladdu naga caawiso qaabkeedii ka caawiso deena qiimo dhimisna lagu sameeyo cidda qura imika laga doonayo inay xal gaadhaa waa dawladda dhexe waa inay degdeg u soo gaadhaa arrinkaas wax uga qabataa haddii kale arrinkaasi qarax uu keeni doonaayo dabeedna wuxuu gaari doonaa meel laga xallin kari waayo Berbera waxay heshaa dakhli ka badan ka magaalooyinka kale waa mid ka dhaqaale badan badi magaalooyinka waaweyn laakiin kama muuqato Berbera miisaaniyadaheeda malaayiinta dollar ah dadka reer Berbera waxay dakhliga Berbera u maqlaan si la mid ah sida ay dadka magaalooyinka kale ee jamhuuriyadda ku nool u maqlaan laydhka Berbera muu kabi kari waayin dakhligeedu sidoo kale ganacsatada leh warshadda oo qaarkood ka mid yihiin tijaarta ugu waaweyn ee dalku leeyahay may buuxin kari waayin baahiyaha laydh ee magaalada balse xaalku waxa uu muuqdaa hooyadii tidhi ninkaa feedhaha weyni kamuu dhali kari waayin inantayda ee waa uu hagranayaa Berbera tijaartii laydhka iyo duqii magaaladu may kaafin kari waayine malaa way hagranayaan